dadka waxaan halkan uga sheegayaa snaapkay ku jira marka la idin dhaahdo wadan aad ka imanasaan ee la idinku yiraahdo alaab la idin dhiibaya dad iyo ilaahay foojignaada ninba alaab ii soo dhiibanay reer Bristol jooga oo igu yiri beer kaba ii soo qaad laba beero kaba walaal ii soo qaad oo ibariyay waxa la ii soo dhiibay laba kabood oo lagu guray waxa la wixii jaad magaalada waka jaadkii magaalada joogo dhan ayaa kabihii la igu soo guray dhexdii baa laga saaray markaysaan gundis baa lagu wareejiyay waa nin xunaabi waso reer Bristol oo reer gadiida baa la yidho Bristol jooga abul fucking find you motherfucker yo adoonaysiina la xidho ana detailskaaga barta ka sheegay dhiladii ku dhashay was maanta dhan buu lahaa kaba ii soo qaad waa anigii adiga ku dheh aan ku yimaado faleek kab kastaaba sidii u buuxdo aksay u buuxaan waka is ilaaliya dadka alaabta idin dhiibaya kareem haday idin dhiibana ka soo qaadina 10 haydii noqoto 10 wuxuu igu yiri kabaha ayaan la kala furfurin bal kala waa disable yaa xidha Clarix ba ku yaala wadanka yaa xidha waxan dadka muxuu haystaa meen istibrihiin fakh baan ka siiyay fucking ka uraya kabiis السلام عليكم maanta xaga waxaan ka sheegayaa wax muujiso la igu dhacay airportkan joogo waan dhoofayay time man helin aan ku macneeyo aanu ilmaadeer inaan nahay moodayay oo family friend xitaa naho walaalkii la saaxiiba oo hadi habeen qof wanaagsan oo snapkaygu jiray ayaa igu dhashay walaal goormaad imanaysaa waanu sheegay maalintii wiilkayga 12 September baan imanayaa baan ku yiri wuxuu igu dhaalaab badii soo qaadaysaa walaal afarta ishu meermeerinayay aan kula walaal shandadayda waan xidhanayay macnaha alaabti miyaan ka imaadaa inankaas maalin kasta wuxuu igu lahaa walaal bari baa lagu keenayaa inankii baa wajaala ku maqan haddana berberu tagay haddana caynkan waa kaba ii soo qaad igu lahaa haye baan ku yiri maanta markaan baxayay baan kula walaal kabahaaga waan ka imanayaa because the time ba ma jiro alaabna ima soo wadid wuxuu yiri walaal ma ogeyn in reer gadiida oo reer Bristol ayaa iskala ka baxa waxaan ku yiri laba mid soo gal ninka reer gadiida reer Bristol inaan sheegto magaciisa saddexan ee meesha la yeelay cadayntiisana adiga hayso inaan adiga ku qabsado ma reer gadiid baa jira ma reer Bristol jira kaalax dhalay isagoo inaan kaana idin sheegay sawirkiisa idin soo dhigaya message-diisina idin soo sawiraya waxa wada Ahmed Abdul Qadir wa Abdul Saad wa reer Kaadif wa adeerkay macallaqo biya garaac dhalayaan hooyadii iyo walaalihii ba shalay Hargeysa ka yimiday ya wiigii hore ay Hargeysa ka yimaadeen aniga hadda cadaawadii qabta Ahmedow ii soo badhadhina adeer nacas dhalay baa aniga ii soo badhadh hooyada iyo walaashaaba u soo dhiban lahay jaadka ku mirqaanaysay doonayso iimaanka laga qaaday aabaha wase inaad aniga xitaa doonayso igu baqtiyaan nasiib samahan hooyada maxaad ugu dhiban weyday walaasha maxaad ugu dhiban weyday hablihiina maxaad ugu dhiban weyday aabahaaba soo baxaya anbaba yimi maxaad ugu dhiban weyday taaniga inaad shirqoolaynin way kula go'day aniga waxba hay barin nink alaabtaadina CID ga police Hargeysa haysa police CID ga nu dhiibay bitch baa tahay nacsiyo marka bili aadanow cid waxa aaminina alaab waxaan qof bili aadanow sidii bartii baan ku daadiyay bartii amba cream ii soo dhiibo amba nacnac qor ii soo dhiibo amba beer kabaayo kale ii soo dhiibo shay kama sido Hargeysa alaabtii bili aadan kodhan kaga yimiday samad garan anigana ilaahay baa ila jiray I was so innocent daacad baan ahaa samad garanin qofna kama sheegsanin wixii soo dhiibayo laakiin waxaan soo dhan idinku sheegay number 1 fadeexada dila doonaysay ceebta dila doonaysay iyo fadeexada la wareegisay aanaa ku kashifaya bari baad qof kale ku samaynaysaa haddaan maanta idhaahdo waa in adeerkay waa nin Cabdul Saad hayaa ilaafta ku garaacdo kuma garaacanayo halkaasaan ka sheegay sawirkaaduna halkan ku xigaa message-da isoo dirteen xaggan aan dhigayaa bili aadanku ha ku ogaado hooyadaabad xidhilad walaashaabad xidhilad aniga doonaysa inaad xidho no way marka walaalayaal iga dambeeyo qof bili aadanaha aamini qof bili aadana shandadaada waxaad adigu hubto oo ku xalaalo shilinkaaga ka soo baxsatood ogtay meeshu ka yimi meeshu ku dambaynayo ayaan idin kula talinayaa alaabtiina qaata qofna waliba ku dhajiya qof la'aan haba ku bixina balaayada maanta dhacday waydun arkaysaan cid idinka sheekeynaysaa ma jirto
كودة كي حماية كانينا ساد بولها ساد نمبر بولها كاسان كشرية أحمدو كاسمان تهلكو قلات كشكين الساعة عد كستوانا قانا هرقيسا وذا اللينكس بان كلية هاي CID دا المركبة ولا هادلي شاهدكي يلا مركي ساد كلا يقصو قراعي إيا كبيهي با حفيزك CID دا يالا إيه هرقيسا يقانا الله ديل قرينيا ولا سوهي ليا لمبركيسي وساد لنا هالكا يديس وصاري waxa kale waxa iga daran ninkaasi snapkiga la hadlayay markuu noqday inuu connection-ka isku xidho oo aan alaabtiisi soo qaado walaashi oo ka timiday Hargeysa oo ayaan dhaweyta timiday ayuu lambarka WhatsApp-ka kula hayday lambarkii Hargeysa Soomaaliland ahaa ayuu igala soo xidhiidhay markaas uu yiri lambarkani waa lambar Soomaaliland oo walaashay sidato ayuu igu yiri markaas aan yaabay war walaal Axmedo Hargeysana ma joogtide lambarkan adiga soo garaacday WhatsApp-ka Soomaaliland maxay markaas uu yiri walaashay waa telefonkayga Hargeysa la tagtayo maxay haydayaan aan ka isticmaalaya lambarkayga telefonkayga markay soo celisay aniga caruur buu haystay inaan isku bidhahay oo dhaamahay anigu waan qoslaa oo waan sheekeeyo waan xaraabeeya laakiin walaal aqligaygu kaaga uu ka badan yahay dhinacsow uu ka badan yahay diligu dhala xaraanta lagu dhalay in lagu xidhin la xidha doon saada xidhmi doona samad garanin marka waxaad qoto dheer ka soo shaqaysay baa kula go'ay